بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. الحمد لله. إلهي baa mahadle subxaanahu wa tacaala marka ugu horeysa naga dhigay muslimiin. huwa samaakum almuslimiina min qabl wafii hada liyakuuna arasuulu shahiida calaykum watakunuu shuhadaa cala annaas. ilaahayna dhahay subxaanahu wa tacaala, ilaahay muslimiinow idinku magacaabay kitaabkan qur-aanka dhexdiisa iyo kutubidii hore oo ambiyadii ilaahay lagu soo dejiyey, si rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markhaati oo idinkugu ahaado, adinkuna markhaati adigu kacdiin ummadihii kale markay rusushooda ay yidhaahdiinna ma soo gaarsiinin. ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala rasuulkaas ummaddiisii naga dhigay, oo markii isaga ilaahay ou fadilay khalaa'iqda dhammaantooda ilaahay ou ka sara mariyey, annagoo ummaddiisii haddaan nahayna annagana sidoo kale naga dhigay oo ummadaha naga fadilay, sida ilaahay ou noo dhahay: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkari wa tu'minuuna billaah. marka xaq weyn oo aanan gaari karin, xuquuq aanan bixi karin, oo ilaahay mooyaane cid kale oo ogaa karta aysan jirin ayaa rasuulkeenu nagu leeyahay. rasuulkuna ma ahan calayhi salaatu wasalaam derbi eraya ku yaalla oo ina la akhriyo amba kitaab la akhraayo la dhammayhaayo ma ahan. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu ka sara mariyey in la fahmo oo cilmi lagu soo koobo ilaa cilmiga alla mooye. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ambiyada ilaahayna ma taqaano oo ma soo ixaaday karto, ma soo koobi karto, ma taqaano macnaheedu. waxaan ka ula jeednaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yahay iyo maqaamka ilaahay uu siiyey, derajada iyo kamaalka ilaahay uu siiyey, cid aqooni kartaahi ma jirto. ambiyada iyo rususha iyo malaa'igtu ma aqooni karaan. waxaana caddaynaya qur-aanka naskiisa aayad bacdigeed hadda aanu soo qaadanno maxalu shaahidka. ilaahay rasuulkiisa waxau dhahay: ilaahay kitaabuu kugu soo dejiyey, waa kitaabka qur-aanka, xikmaduna maa fiihi min alaxkaami, waxaa kitaabkaas ku jiro axkaama wayaa la yidhi, ama waa axaadiista saasaa lagu fasiraa. wa callamaka maa lam takun taclamu, ilaahay waxau ku barbaray waxaadan aqoonin qabla tacliimillaahi, ilaahay intuusan ku tacliimin ka hor. wa kaana fadlullaahi calayka cadiimaa. fadliga ilaahay kiisaa oo ilaahay ku saaray waa mid weynow dhahay allah subxaanahu wa tacaala. macnaha aayaddaas ayaan waxaan rabnaa inaan ku cudur daaranno, inaan waxaan sheegi rabno aysan ahaynin wax nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo koobaayo, lagu soo xasrinaayo, oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sidaasou ahay la leeyahay. marka ilaahay waxau dhahay: wa kaana fadlullaahi calayka cadiimaa. ilaahay fadligiisa oo ku saaray oo alla uu ku siiyey waa mid weynow dhah.
fadliga alle oo nabiga la siiyey ilaahay wuxuu ku sifeeyey cadamo ku sifeeyey weynin ayuu ku sifeeyey waxaa qaacido kulliye ah marka ilaahay waxau kasra oo ku sifeeyo badi ama weynin ama alam ama shido cid makhluuq ahoo fahmi karta inaysan jirin qaacido kulliya waayo culummada islaamka oo dhan ay isku waafaqsan tahay min cahdi saxaaba ilaa an taquuma saaca marka taas waxay naga caajis gelinaysaa inaanan maanta ama maalin kasta aanan ahalba u ahayn intii xataa ahlu khayrka aheedayoo nabiga calayhi salaatu wasalaam la zamintantayoo saxaabadiisa xataa dadkii ajillada ahay oo khulafaa u raashidiin ay ka mid ahaayeen nin ma jira nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlay ama xataa saas ina u fiiriyay indhihiisa u dhammeeyey ma awoodi karin ijlaalan lahu weynay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay weynayhaayaan waxyaabaha hadda sifaadka ahoo nabiga laga sheego waxaa laga qoray dadkii siqaaru saxaaba ahay saxaabada dadkii yaryaraay oo ayagu carruurta ahayoo nabiga uu ordi jiray marka uu safarka ka yimaado nabiga calayhi salaatu wasalaam iskala cayaari jiray ilaa nabiga akhlaaqdiisa waxay keenaysaa cid kasta inuu kufac yahay oo ciyaalka xataa uu la kaftamaayo raggii sidaas ahay ayaa waxaan hadda la qoray ayagaasaa laga soo guuriyey laakiin raggii ahlu maqaamaadka ahayoo waaweynaay waxay nabiga ka sheegeen ma jirto maxaa yeela ijlaalka iyo cadamada iyo tacdiimka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku leeyahay agtooda ayaa waxay u diiday inay sifeeyaan waxaan hadda marka barnaamijku taas marka waa cudur daarasho waqti kooban in wax lagu sheegana ayaanu rabnaa maadaama nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan shacaa'irtan inta hadda maaragtay ixtifaalka oo shay aad iyo aad mustaxsan u ahoo wanaagsan oo culummadu ay nooga soo hadleen horena looga hadli jira haddana laga hadli doono intaanoo shacaa'ira mujtamacaan isugu yimid masjidkeenaan barakaysanoo masjidulcilmi oo sheekheena jaliilka uu leeyahay masjidkeena sheekh abuubakar xasan maalin markasiisi ah culumta iyo ayaa sagayba si joogta isaga taallahoo ninkii cilmi baranaaya nabigu wuxuu yahay intooba ka baraaba marka waxaa waaye hal sifo oo sifaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam ka mid a hal sifo waayaday sifaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam horta cid koobi karta ma jirto waxay soo gelaysaa wa kaana fadlullaahi calayka cadiima waa ka weyn tahay in makhluuq uu ogaado marka annaga waxaan muujinayna shacaa'irtan waaye intaasaan ina soo koobaynaa marka waxaa weeye inaan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo wax kasta ilaahay ka sara mariyey oo qur-aanka meelo badan uu ku sheegay oo axaadiista nabigeenna uu ku sheegay oo asagu iska warramay hal sifoo sifaadkiisa ka mid a ayaan hadda maaragtay mawduuca aan xoogaa wax ka iftiina ku leenahay waxa weeye akhlaaqda nabiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdana nabigeenna markuu ka hadlaayay axaadiis saxiixeynka waxa jannada lagu galo waxaa ugu badan xusnul khuluq ayuu dhaha rasuulka dabeecada wanaagsan ilaan waxa weeye waa isaga wax ilaahay uu siiyey oo alla uu ku ammaanay waayo markaasay waxay noqotaba in dadku ama muslimiintu waxay jannada ku galaan waxa ugu badan inay xusnul khuluq dabeecada wanaagsan ay tahay oo axaadiis saxiix ay ku soo aroortay marka bal nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay muxuu dhahay rabbigiisa isagoo ammaanayo oo haddana ammaana ay u tahay asagooy nabiga ammaan u tahay calayhi salaatu wasalaam oo ammaanta nabiga la ammaanayo meeshaa nabi ammaanaa ka yeera ayaa leeyahy ma og tahay nabi ammaanka ilaahayaa looga dayanaa ilaahaygii ammaanay annagu sow ilaahay ku daysamayno waa inaa ilaahay ku daysanaa subxaana wa tacaala ilaahay rasuulkiisa muxuu dhahay wa innaka la calaa khuluqin cadiim suuratu nuun ay ku jirtaa qur-aankaa taqaaniin nebi moxamedow waxaad ku sugan tahay dabeecad oo wanaagsan la calaa khuluqin haddii la yidhi intaas waa la sii sifeeyeeday la calaa khuluqin cadiimin ow dha ilaahay dabeecad oo weyn ayaad ku sugan tahay hadda maxaan soo maraynay oo qaacido kulliyaa ah oo mashhuurah
oo intii ahlul cilmiga ay taqaano maxay aheeday wixii ilaahay cadama ku sifeeyo inaan wax soo koobi kara cilmiga makhluuqa inay ka baxayso cilmiga makhluuqa inay ka baxayso fadliga ilaahay nabigiisa siiyey ayaa cadama ilaahay ku sifeeyey taasi waxay caajis gelisay khalaa'iqda dhammaanteed ay caajis gelisay cid idoon laga reebaynin ilaahay makhluuq ma waa khaaliq alla kaliyaha og marka haddana hal sifo oo sifaadkiisa ka mid a rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markaa sifada oo akhlaaqda oo ilaahay cadamo uu ku sifeeyey ayadana halkaa sifo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sifaadkiisa aan xasriga lahaynin ka mid a ayaan iidana cid ogaa karta aysan jirin taas marka maxay ku tusaysaa هذا إسكا ومارتيا نبي إسكا جعلاو واتوده إمام البوصيري فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وحكا سل شيك شيء عدكا وحده ذا ورك دمات كيس وحوايا ودهي إنه نبي بشر ويا بشر بني آدم أو بشر إذا أو ضدك كلاميديا وبشرية أو بشر لا كالبشر ولكن نبي عليه الصلاة والسلام وبشر لكن لا كالبشر واي إيا خلقك إلهي ميتك أو خيرك بدن إنه يهي وحكا لو لشيء كرو أو إذا أي تلمامي كرتا ما جرته وف شيخها ميل صور وفريسي نبي يو نوغا شيكي واكا شيكي لك حقي كو قاريه ميلو كنت قلمار إربط عاردد ما كقاد ما إسكداد وحمارتي مثقال ذرة وأصغر 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 حتى مؤسا كقاري لعلى خلق عظيم دبيعد وناسا آيات كسوغنتا ولذا أيا وحالة ضلبا يا إن نبقى دبيعديس تلقى دبيعد يشو أيا لوبا هي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واتوا إلهي أدى النبي محمد أهاله مد دبيعتهم أو سيء الخلق ضدك واكاك لتجي لهاي خلق ذا النبي عليه الصلاة والسلام وحافظ سري أمنا عائشة الزوجة المحبوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم دي زوجات كيسة أو علمك بدنيد إيها وينك مسلمين تبا أيا فسرتي أو نبي عليه الصلاة والسلام سوى الباء يدو أولا باشرتي ظاهر إيا باطن بأو تقيني انت إلهي سبحانه وتعالى وكجارسي أيضا لفت الكاذو نبي ما كوبي كرت نبي إلهي يا أدي ذا إن مخلوق أو قاذو بركة وحي تري هدان النص كوبي كوضا موقتها حديث صحيح البخاري قال لي نبي مركي أمنا عائشة لويدية وحي تري كان خلقه القرآن نبي قد بي حديث قرآن كي هذا قرآن كي هذا نبي قد بي حديث معناه ما هيكوضا مركه نبي عليه الصلاة والسلام قرآن كاسوك دقمايي قرآن كاس كريم كهو منزل كه او إلهي أوسيي او إلهي أوضاي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أوضاي فيري قرآن كي حتى نبي اللي سود دجيي إلهي عظمو كسفي أصغنا نبي عليه الصلاة والسلام إيا وحكا الصو أصغا كوكو مبا ووحوض عظيمة عظمته هذا ما هذا ماشي بنانك وبعدها تقول سر وين هذا وجهنا صرتها وين تهان لنا لا تاسو كلامها تاسوا وحان إحاطة يكرنه أو أنا مخلوقة أن فهم كرنه نبي عليه الصلاة والسلام تيسعد فهم كرت مجرد بركة وحيتي كان خلقها القرآن أخلاق ديس القرآن كي هذا قرآن كنا إلهي نبي أوسيه محورها إلهي أصو وليبا دار مرايا وقرآن كوينينا يا رسولك عليه الصلاة والسلام رب العزة اسكو دارنيا ولقد ووذنا مركز وحرف القسم واي لام تنم وضعت للقسم واي قد حرف التحقيق واي بل انت اسكو لقم تفيري دار ايه تحقيق اسكو لقم انت وحي الله كل مية وركما دمر إلهي يدونا دارنه سيدا ذا بيسكتها مر الله دوشي لكن أنك بشرك أيانا أتكينا يا أوغا مارتيا dabeecada carabta waxay ahaa jirtaa dayshay inay adkeeyaan rabaan way isugu dhaara jireen walaqad aataynaaka sab'an min almasani waxaanu ku siinow ilaahay todobadii la soo celcelinayay waxaa lagu fasiray faatixada oo nabiguna ku fasiray
liannahaa tusanna fii kulli ragcatin maxaa yeele salaad kastoo la dukanaayo ayaa faatixada lagu soo celiyaa. faatixadu arkaanu salaaday ka mid tahay. haddaan faatixa salaada lagu akrin salaadaasu ansixi mayso. a'imada markaasi jamhuurtoodu saasay qabaan ilaa abaa xaniifa mooyaane, oo asagu laftirkiisu qur-aanaa looga bedel qaado kara dhahaaya. laakiin hadda waxa weeye qowlkaas lama wada raacsano. axaadiis badanaa jirta inay faatixadu ay tahay inay rugnu min arkaani salaad ay tahay. waalqur'aan alcadiimo haddana dha ilaahay, bal faatixadii aa la soo hormarshe fiiri. faatixada macno badana qur-aanka macaanidiisoo dhan faatixadayba ku dhex jirtaa ha la yidhi. qur-aanka macnaha qur-aanka haddii lasoo aruursho faatixadaa la dhex gelishaa la yidhi. faatixada ay ku dhex jirtaa. heerkii kala soo bixi lahayaa se la rabaa ogow. heerkii la soo bixi lahaya haya laba qur-aankaas tirada badan ee faatixa la dhex gelisho oo mar walba iska akrayn. iyada laftirkeeda koonkaan oo dhami wax kastay ka weynta. maadaama qur-aankii la isugu keena macnihiisi faatixa intay la eg tahay la isweydiin maayo. culammada islaamka waxay yidhaahdeen oo maaragtay caarifiinta waxay yidhaahdeen faatixada adina soo wad soo dun ayadana basmaladeeda bisinka ayaa macaanideedu ku jirta. qur-aankiiyay la soo degtay ma ogta, markaas ayadana bisinkay gashatay. basmalada haddana ba'day ku jirta hay dheen ba'da bismillah ba'daas laga bilaabaayo ay waxay dhan lagu soo aruusheeda. qur-aanka sidaas ayaa nabiga calayhi salaatu salaam ilaahay siiyey. cadamoo ku tilmaama marka waalqur'aan alcadiim ou dhahay ilaahay. marka fiiri asagii ilaahay waxau siiyey cadamoo ku tilmaama. sifadii marka lagu tilmaamo hal sifo sifaadkiisa ilaahay cadamoo ku sifeeyey. qur-aankii lagu soo dejiyey ilaahay cadamoo ku sifeeyey. marka yaa nabiga ka hadli kara waayo. kaana khuluquhu alqur'aanay tiri akhlaaqdiisu qur-aankay ahaad. waa soo koobaynaa sababtoo ayna wax isku dayno waxba maba naqaanaba horta kow. laakiin halaha dhelahoon xoogaa laqlaqbaysana waa sheegaynaa haddaan dhahno ayada laftirkeeda ma suurtagelayso. meeshaan mawdacaan markaas u maahan maxal u maahan. sababtoo waa aragteenoo xertu meeqa sanay kitaabada akhriso weysaa. 30 sano 40 sano 50 sano aa la akhriso. waxa la akhriyaane waa wax nabiga ka yimid calayhi salaatu wasalaam. marka majlisee wax loogu sheegi karaa waa maya waay. shicaarka lee muujaynaa akhlaaqda nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maaragtay asaasa adduunkanoo dhammay ka weynta. aayaddaas waxaa maqlay waa soo koobaynaane inaan wax dhahno waxaa naga kaafinaya inaan rasuulkeena calayhi salaatu salaam majliska maanta aan u fadhino. haddaanan xabad dhihin oo intaan qasaa'idan iyo salawaadkaan dhegaysano intaanu maxay u timiday nabiga calayhi salaam ixtifaalkiisa farxadday u dabaaldegayso ayay u timiday. gaaladu ay ka naxdo, munaafiqiintu ay ka naqcaan, ee dadka nabigu inuu dad leeyahay, dad jecel uu leeyahay, axbaabu rasuulillaahi ay joogaan ilaa an taquuma saa ay joogayaan. waxyaabo badanaa shacaa'irtaasaa ku hoos jira. marka nin xibri yahay oo markaasi culummada ka mid ahay yahuudda ayaa dhulkan shaam ou ka yimidaa la yidhi. wuxuu rabaa qur-aanka wuxuu maqaliyey wa innaka la calaa khuluqin cadiimin oo maqla. marka ninkaas waxaa la yidhi nin wuxuu ahay nin towreed yaqaanow ahay. marka wuxuu maqlay arrintaas waxay aheeday zamankii oo khaliifka ahay sayidina cumar binulkhadaab ayay aheeday. inta nabigu jooga calayhi salaatu wasalaam ma aysan ahayn sida la sheego. marka qaarna waxay yidhaahdaan waktigii sayd abubakaray aheeday. waxyaabaha hadda isu tegtegi kara dhibsa male. hadda zaminku dhib naguma haayo. zaminka dhib naguma haayo taariikhda. laakiin waxaa weeye waaqicada ayaanu fiirinaynaa. ninkaas waa yimiday madiinatu rasuulillaahi ayuu yimiday. markaas waxaa weeye nin aad iyo aad maaragtay qawiyun fii diinihi ahay oo maaragtay aad iyo aad maaragtay u adkaay ayuu maaragtay wuxuu is yidhi ninkaas waxuu rabaa marka cilmiga asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu jarribow rabaa ou ogaado. madiine markuu yimid markaasi sayd cumar ou raadsaday. sayd cumar markuu u yimiday ayaa markaasoo waxau dhahay yaa cumar
صف لي أخلاق محمد نوده عمر أخلاق النبي محمد إيه صفة يوده سيدنا عمر بن الخطاب رجل نمديس يجلس نمديس يعذكر نمديس أكتهين وحوي النبي عليه الصلاة والسلام حقي سينوح كشيء ليرادو دنكاس جيسي يمدنا كما هينه وإسكاء مصابة مركزه وحوده بلال أعلم مني بذلك وده بلال إيقا أقوام بدنه وده هذا أصحاب النبي جانا نوال بنينك كلا أيو اعتراف سنة مويانا نينك كالانتود وحان حقرايا أما حسدايا ما أوصن هينين لكن زمنك هدو سوفق هذي ضدك وحاد ديلي وحلي هذا حسد أياد ديلي لبدين معلموه دوكسي حافظة إسكولها ستعالى إسكوتها وحافظة إسلجوكت لبدا ودادون بمساجد كان وحكار هالكا كالتو عيسك سهر جيدان بكا سي مكروفانada isku dheeray haayaan magaaladan iyo dhulalkan waa ku badan taaba waxa saxba laga dheefi maayo akhlaaq xumo waay iyo diin la'aan waay waxaas bas gelayna taas markaas uu haw dhahay bilaala iiga aqoon badan uu dhahay waa oradiya marka gabgab sayd bilaal uu taga markaas yaa bilaal uu dhahay markaas صف لي أخلاق محمد أخلاقيسة إيه صفي بلال أصنواب يسكن حابة مركز ماشي يلقى شواي موقت أنك هذا إنا النبي وحكا شيء إنه إسكته وتوينه وها كينايا وحصاص هانا هين ما نينك مارت يا نبي عليه الصلاة والسلام وكوين هاي وابسكا مساكاس هذا أنا ما مسكرناه وحاوية وحان إسلانا دا شبت له الشيطان كفى إذا إسان إسلانا الله صانا قايل سيا ما هي وحان كنا قانا مجرد نبي مركزا وحاوية بلال وهوري فاطمة أعلم مني بذلك وري فاطمة إيقا أقوام بدوري يعني قبرتيس أو تقوله وسوبعي مركز فاطمة ويمد يا فاطمة وير مركز صفي لي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم إيه في أخلاق محمد مركز وحيتر أيضا علي أعلم بني بذلك يتر علي إيقا أقوام بدن يتراني وسوبح يا مركز سيد علي ويمي ذا مركز علي وحاو كداي علي صف لي أخلاق محمد انت سو مريد حتى أشيك ما يديه مايو سيد عمران كصور دعي بلالان كصور دعي فاطمان صومبري ما دها يدي وانين مركز حجوة تموكته لكن سيد علي او عالم وين هاي او مارتيا كنوس بدن إلهي أو سيي جيسنا هاي او دكتهين او أسد الأسود هاي أيا وحو فهمي نين كان ولا جيددي سو فهمي إنو دونايو إنو أصحاب علم جيدا إنو جربه أو ربه مركز سيد علي مركز واحد جيي Soomaalida waxay yiraahdeen moogtahay labada hore ninki ka dabra labada dambaa laga dabra labadan gacmood qofka isaga ka xira hadaa si lugaha laga xiro marka asagana bis waa ma dhaqaaq kariim moogta markaasaana Sayyid Umar waxa Sayyid Ali waxa dhahay sifli mataa dunya haw dhahay wahiya qaliilatun haw dhahay mataa dunya isifay wari qabla intaana taas kaga jawaabin bal aniga tayda bal ka jawaabo dhahay ana midku soo hormaraaye taas meel hay taale ilaa nin ordaay adiga oo gabgablo wax doonaaye sifli mataa dunya wahiya qaliilatun mataa dunya markuu leeyahay adduunyada no dhamaal wajah samaawaadka iyo arlada iyo wixii ku yaa wixii ku nool mataa dunya waay mataa dunya isifa oo waliba qaliilaha wax yara ila ilaahay quraanka muxuu dhahay qul mataa dunya qaliilun ilaahay ma dhihino والآخرة خير لمن اتقى قرآنك والتقانين ها متاع الدنيا وحير أو قليلة ولا يكتر مامين وقته أيادي وحي ليو حتى أياد اللغو أبوري إيه سفايا وله ننكي مركاسي وحاوية فتحير والدهشة ننكي واوريري مركاس وحاو شيغو قرواي إنه تاق مركا intaas waqtay dadka qaar kood in la iska dhacsho waa rabaan innaha markuu taagay Sayyid Umar markaas wuxuu yiri markaas kayfa asifu laka akhlaaqahu al-azima
وأنت لا تستطيع أو لا تقدر أن تصف الدنيا أن تصف متاع الدنيا وهي قليلة وهؤلاء السينكو صفيها هوري أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أو عظيمة إلا إلهي وهؤلاء وإنك لعلى خلق عظيم أو موقته أدوغنا ذن أود أولهين متاع الدنيا أو قليلة إناد إيه صفيسة إلا هذا دي صفي هذا عرشك ما يغو ديه ما يغو ككوبيه أيال ليه ولو انتفاعه هي سماواتك عركان وحوديها صحاب كان ميقبيها كجرة دول كان ميقجيدا كتال ميقجيت كان ميقع هل كان فيه ماشي كيا ميقع عليه ما كتال هذا قف كله ويدي مش شيكرا وكاسيا شيكر هذا اسكدافا كان كلا كيمو هل كان جيدو ماشي كيا ليا شيكرا قف شيكر تمله موقته متى عديه هنا كميديا موقته marka waxa weeye waa weereer markaasoo ka baxay ninka marka akhlaaqdi nabiga kaleey waa sifatu min sifaatihi ka waranay marka hal sifo sifaatkiisa kamida waay sifaadka nabiga kaleey salaam iyo waxa nabigu yahay cid sheegi karta ma jirto marka hadda intaas qofkii kala bakhiila ka waranay oo dhahaya waxaan waa maaratay xaan ka sheegayna waa laga badbadiyay wal ciyaadu billahi ta qof muslim oo saas la ilaa maahan laakiin dad baa dhalinyarada meelaha ka soo sheegay marka waxa weey waa nasiib darataas war cadaan baa awood waxaad u leedahay la arage oo waxa sheegi karta la arage bal hadda maanta maalintan munaasabadan iyo waxeedana waa laga waramaya waana horana waa looga waramay waana ogtihiin iyo adilada waxay leedahay baartay insha Allah ta'ala Sheikh Abdul Qadir yaa nooga warami doone insha Allah ta'ala mashaayixda kale ilaahay idankiisa akhlaaqdi nabiga kaleey salaam oo hal sifo sifaatkiisa kamida ayaa meeshaas xogaa ku soo koobayna hada wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh